ha ka cararin qaado mas'uuliyadda go'aan ka soo saar wasiirada aad dirtayna wixii ay kuu soo celiyaan waa arkay hadda anigu wasiir fartaagu hadlaya dhahaya dowladdu cadow iyadan kuma aha wuxuu ka jawaabayay hadalkii sida khaldan oo statementigii dowladda oo ahayd inay xoog ku soo gelin doonto taasuu ka jawaabaya asagu ugaaskana si fiican uu u hadlay marka anigu waxaan qabaa xalku waxa waaye dadka deegaanka iyo waxgaradkooda iyaga hal isku daayo xal kasta ay keenaanna waa inay dowladdu aqbashaa hadda wixii ka dambeeya marka xuduud horta dalka yaa ka mas-uula waxyaalaha aan la yaabana waxa lagu leeyahay dowladdu iyadu ma qaadan karto arrinkan sababtoo ah dalka xuduudihiis ma maamusho xuduudaha dalka iyadaa ka mas-uula nisa sirdoon buu leeyahay dalkan haddaan la ogaan karin marka maxaa dowladda hore markay joogto maxaa loo soo gelin waayey waa idinkii mirinaayo iyo inta shabeellada dhexe inta ciidanka ka keentaan dowladnimada kala hor imaanayay maxaa hubka loo soo gelin waayey maxaa xuduuduhu ilaan waa furnaayeen soomaaliya weligood hub noocaan oo kale ah maxaa loo keeni waayey fiiri in runta la isu sheego hubkan dowladda rag ku jiray oo shati dowladeed watayaa keenay haddaan la helin iyaga iyo ganacsatada is wadata haddaan la helin xal ma imaanayo hubkana bilow maaha waa mid ay soo gelin hubkaana uu sii socon doonaa sida anigu aaminsanahay sababtoo ah xasan maamuladii way kala tageen doorasha u socdaan iyagu inay qabsadaan iskood wuxuu isku dayayaa marka inuu doorashadaas kula dhego ama kula challenge gareeyo waa tan loo socdo taas waay marka maamulada kalena inay ilaaliyaan amniga gudahooda anu waxaan aaminsanahay inay tahay muhiim faragelinta dowladdana oo hadda aan u jeedno inay waddo runtaan waxaan is dhihi karaa waa mid ay ku fashilmi doonto puntlandna waxaa arkaya iyadoo dalbanaysa in la geliyo oo cunaqabateen hub runtii waa anu ma aaminsani aragtidaas sababtoo ah dalkan waa dal madax bannaan madax bannaaniday ka hor imaanaysa dal markuu madax bannaan hadda suudaan oo kale maxaa cunaqabateen hub loo saari waa iyaga militarigu isdagaalaya lama saari karo laakiin madax bannaanideena ku xiran dalka dal markuu madax bannaan yahay waa inuu hub keeni karaa hub soo gadan karaa marka in hadda la dalbado aniga ma qabo laakiin khatarta hubka uu leeyahay oo dowladdu xitaa hadda inay tiraahdo dad khasab ha lagu soo celiyo hubkii hadda shalay madaxweynuhu hubkii warshiikh iyo cadale iyo shabeellada hoose hubka yaalla oo adigu aad bixisay shacabka gacantooda aad gelisay yaa kugula xisaabtamay adiga maxaa uga soo celin weydeen dagaalkii shabaab waa ku fashilantay marka in been iyo wax dowladnimada ka baxsan madaxweynuhu uu warar isburinaya inuu iska hor keeno hadda waxaa ku garanaysaan siday dowladdu been inay tahay been cad inay noo sheegayso waxaa ku garanaysaan waxay soo saareen 4 statement oo iska hor imaanaya midba mid buu burinaya midba mid buu ka hor imaanaya taas waxay caddaynaysaa marka waxa inoo sheegaya inay been tahay oo falkan uu iyaga ku cad yahay ama kooxo ka mida dowladda ha ahaato ama madaxda ugu sarreysa ha ahaato laakiin nimankan hadda maraykanka oo kale iyo reer galbeedka baaritaanada ay wadaan haddii ay soo baxaan arki doontid dad ka agdhow madaxweynaha inay liiskaas kusoo bixi doonaan sida aan xogta hadda aan ku helayo waa idiin soo celiya waa mahadsantihin Soomaaliyeed oo dadkana ay sharfaan yani inta qof Soomaali uu tabasho qabo waxa weeyaan mashaakilkana waa jiraya hadda shalay soo wiilal ciidan baabuurta la socda oo saraakiil ah oo sugidda ka tirsan soo lama laynin macnaha loo leynaya maxay tahay kuwa qaraabo la reecawdaq waa ku jira reecawdaq way u badnaayeen maxaa loo leynaya because oo ma arkayn dadka shacabka ah ciidan inay yihiin oo yani awoodii sharciga ee dalka inay u shaqeynayaan loo umay arkaynin marka iyaga laftirkoodii maadaama aan loo arkaynin victim bay noqdeen saasaa loo dilaya meel walbana saasaa loogu dilaya
shabaabku waxay u yihiin inay yihiin nimankaas murtadiin inay u yihiin oo calooshooda shaqaystayaal ah bay hadda shabaabka ugu maxaa yeeraan loogu arki annagana waaye waxaan ugu eeg yeeray abowe fiiri iidka cabdiyow maya iidkaada hadda farxi fiiri intaana ma kaga rabo baxaya inaan qalad iyo sax aan isku dhex wadno moogtahay qofkii iimaan ku jiro hadda dee maaha waxa la waxaan ku yiri leeyahay maaha siyaasadda ha laga dadkii ka heshiiyo cabanayay ciidanka waa la ogyahay ciidanka soomaaliyeed aniga soomaaliyaan ku sugnaa 5 sano oo dowladdaasi ay jirtay ciidankaas waxa loo soomaali aanan ka dhex muuqanin oon ku jirinin ma jirin ciidankaas aad arkaysa kuwii 5,000 ahaa iyo kuwii ka horreeyay kumanaanka kun oo tobanayada kun ahaa iska daa marka nin kursi doonayo oo kaambeynkiisii qabiil ku sablaystay oo raba inuu ciidankii in u yeelo warkiisii miyaan tusaale ahaan usoo qaadanaa marka annaga taa keliya maaha farxiyo puntland ciidanka markay tageen oo u tageen waxaa la geliyey 6 bilood baa la diray oo tababar lagu celiyey jubbaland maba imaan karaan baa lagu yidhi completely ma soo geli karaan baa lagu yidhi guryahoodii bay tegi kari waayeen jubbaland marka fiir waana ciidankii hore loo annagana waa ciidankan aaminsanaha ciidanka ugu tayada fiicdaa inay yihiin marka maxaa keenaya in qof soomaaliyeed oo gurigiisii tegay ama cunug lasoo tababaray oo 5 sano tababar ku jiray in la yidhahdo 6 bilood oo sidii cunug qof diraaq qaadan jiray rahaab baa lagu samaynaya rehabilitation baa lagu samaynaya lagu xareeya mar kale in la xareeya maxaa keenaya is-aaminaad daraa jirta therefore inta is-aaminaad daradu jirto waddankan ciidan qaran ma yeelan karo waa in farqiga meesha tan siyaasadda dadku siyaasadda weli lagama heshiyo in siyaasadda laga heshiiyo dib loo fariisto waxaan hadda macnaha dowladnimada tan waraaq un bay wadataa xasan sheekh waxaan isla waalay waxba kama jiraan dad baa hadda ku eedanaya qorqoor muxuu awoodda muxuu isticmaali karaa waa nabadoon beeleed ninkan waxaan waa nabadoono they can do nothing ma malay caqligaaga ma aaminsanaysa hadda dad baa ku faanaya oo xasan sheekh guutooyin buu kaxeeyo caawdaha buu kordajiyey guutadan intay haysatay haystaan iyaguna waa guutooyin cunuga 12 jirka aaka hoosta waana dagaalamaya 12 years old marka maxaa samaynaysaa waa inaad moo black daadisid bay noqonaysaa mogta dhiig badan baa daadanaya marka aniga waxaan ka wadaa innaga haddaynu rabno ciidan la isku aamini karo oo inaynu samaysano dowladnimadeenu ay shaqayso siyaasadda waa inaynu ka heshiinaa inta siyaasadda aan laga heshiinayn sidaan baa ninkii yimaadaa ciidan buu dhisayaa waa la kala tegay waa kala dareerayaan kii yimaadaa ciidan buu dhisayaa taag baa lagu dhajinayaa sidii lo'dii yurub laga keeni jiraa taag loo samaynaya iyo nambaro daaseed halkaasay ku baaba'ayaan marka 24 sano ma kula tahay in la dhisi waayo from the day imbagati laga soo baxay ilaa maanta 24 sano laga joogaa welina ciidan qaran ma lihin 24 sano maxay ku dhacday waxaa intaa maalinta la tababaraya maxay yihiin oo diyaaradaha lagu sii guraya caqli gal maaha inay 24 sano ciidan la samayn kari waayo macnaheedu waxa weeyaan nin walbaa nin markuu yimaado intii ka horreysay buu badda ku daraya waayo marka mashaakilka waa in xalka saxda in la raadiyo waaye in maanta dhan aanu sidii rati macsalishadii iska daba ka wareegna waxba macnaa ma samaynayso waa mahadsan tahay cabdiyow xaliimo guutaale walaashii qaali soo dhawow dhammaan akhyaarta soo dhawaada odawaa waa soo qabsatay philosopher dhammaantiin soo dhawaada xaliima abaayo soo dhawow guddoomiyaheeni weeye waa idinka horumarinayaa wiilasha waan ka horumarinayaa marka guddoomiye soo dhawow farxiyo qaaliyay waa ku salaamay saaxiib caawa waxa waay adaaba noo furtay maasha allah waa idin dhegeysanaa weli lama qabsan haddaan soo galay idin dhegeysta xoogaa saaxiib waayahay philosopher aday gacanta ku taagan tahay soo dhawow saaxiib asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamaya horta odawaa oo long time igu dambeysa odawaa waa ku salaamay xaliimo waa ku salaamay midnimo iyo dhammaan ninkii diiriyena waa joogaa diiriye waa ku salaamay iyo diiriye ciidan in la dhiso waa la isku dayey termkan term ka horeeyey laakiin weerar xuna lagu qaaday nin dhahay haramcad waa ka baqaabo dad cun miya nin dhahay lama gey karo ciidankaas ilaa xagga laga soo bixiyo ma la hadli karo video kor soo saaray Sam Yusuf nin dhahan activist caan oo weyn dalka hadda gabayaan inta video hadlayseen message aan rabi inaan ku tuuro farxiya aan leeyahay ma fahanti haddii xaliimo dalkii iyo xaaladiisa ku weydiiso in yar adoo u deel qaafin qac kaga sii sheekadan dalkii alximaaraad iyo kuwa kabaha u sidaa la wareegay dadkii Soomaaliyeed haddaysan hurdada ka kicin waa lagu tukeeni الحمارات واتخاننا وملينا ورا جعفر كاس كورما اسكا كفتما لكن سيريوس ايتا حليمة waxaan leeyahay
haddii aa farxiyo dalkii wax ka weydiisid ayadoo kuu deelqaafina waxay ku leedahay dalka alximaaraad iyo kow kabaha u sidaa la wareegay gebi ahaan muuse saciid axmed xasan matria dalkan farahen waa ka baxay suudaan hadda way macluuleysaa waa laga adkaa waaya because markaa aragtid inaa macluuleysid waxbaa iska celinaysaa laakiin anaga ma caabanin oo dalkayni waxaa la wareegay dalkan yar ninaa ka bartay waddankan yar oo xun aa ku xigta mugta macnaheeda saasay u dhimantaa waddankan yar markaa dhehaysid soomaaliya waddankan yar oo ani aan u bixiyey dadka imaaraaday u yaqaanaan alximaaraad aan u bixiyey waxaan dhahaa united arab alximaaraat marka taani cid aan kala baqaayo ma lahan dunida soomaalida waxaan u maleysaa haddii imaaraad wax laga sheego in aabihiis wax laga sheego kala qaar u xanaaqaya jiro imaaraadka dunida islaamka iyo dunyo badan dhib uu ku hayaa marka inaa ciidankeena waa noo biila aan ku faanno marna kismaayo uu kasoo dejiyey gaadiid dagaal marna la dhaho puntland ciidanka baduu biilaa marna la dhaho generaal gordon ciidanka ku jiro dowladda dhex ma maamulan karto waxaasaanay haysta waxaasna waxaa la iskaga kici karaa wadajir in qulubta soomaaliyeed ay mid noqoto oo loo kaco dalka aniga qafaan ahay koley meel alla meel soomaaliya ka mid a cid iga leh ma qaba inay jirto boosaaso anaa iskale jigjiga anaa iskale hargeysa anaa iskale muqdisho anaa iskale kismaayo anaa iskale bu-aale baardheere baydhabo beledweyn geyga soomaaliyeed oo dhan cid iga leh ma aaminsani ilaa wajaar iyo gaaris iyo hawaasweyn iyo mooyaale iyo mandheera marka dalkan waa wada leenahay dalkan inaan badbaadsanaa waxay ku jirtaa dadka anaga horta reer dhoowey cidda ahaa fahmi karta waxay dhahaan reer dhooweyda ciil yaxaas loo qabaa bebi webi loo dharbaaxaa webiga haddii yaxaas hadduu xoolo kaala tago maantao dhan haddaa webiga dharbaaxaysid waxba ma ka qaadin mugta haddaadan yaxaaskaas aadan iska celinin mar dambe si uusan kaaga qaadanin haddaadan ka dhiganin xoolaha ama aadan asagaba ka takhalusin oo webiga waa wuu soo dhakadaa zarakeydii dadka yaqaano afrika webiga ee xayawaanka ka gudbaan ciiduu kuu soo dhexgalayaa xooluhu kaala tegaya webiga haddaa dharbaaxdid marka yaxaaska waxba kama qaadin mugta anaga waxaan dharbaaxnaa webigaan dharbaaxaynaa imaaraad iyo kenya iyo etoobiyaan ku dhegannaha laakiin ragga ayaga kabaha u sidana waa difaacnaa waxaan u naqaanaa siyaasi iyo mucaarad iyo waxaan u naqaanaa professor iyo engineer iyo doctor aan u naqaanaa calaamado badan oo lagu garan karaa jira dadkaasaa laga takhaluso hala iska qabto markaa idinkina arko waa farxay videogaas anoo timelinekeyga iska fiirsanaya akhrinayo waxaan arkay videogan aad u cajiib geliyey waa maxamed bin zaid ninka alximaaraadka madaxda ka ah iyo ninka sultanatul cumaan madaxda ka ah salaana laga qaadi waayo waa maxamed bin zaid ayuu gacan taagayo salaanta laga ceshanayo marka waxay i tustay in ninkaa uu yahay nin aad u xun oo dadka soomaaliyeed ee saaxiibada ka dhigtana inaan iska qabana ay mudan tahay haddaan raggaas imaaraadka kabaa u sida aanan iska qabanin dhibaatadeena saana ugu jireenaa dhibta ilaa dadkaas aan iska qabano waa ka baxaynaa garantiyu haddii nin imaaraadka la leh xiriir aan iska qabano barwaaqaan gaareenaa dahab ha dhihin macdan ha dhihin kalluun ha dhihin you name it everything imaaraadka wuxuu kaa caawiyaa ciidan 100 milyan ka badan ma siiyo laakiin trillion soo kaa qaataa soomaaliya waxay gashay waddanka toddobaad ee dahabka laga soo dhaco adduunka tiradu way iskaga dhacday 7 mahayna number 1 inay tahay aaminsanahay marka waa idin salaamayaa soomaaliya wadajir soomaaliya midnimo haddii laakiin reerkaaga aa aaminsan tahay inaad tahay kan kalena reer kale u yahay inaa aaminsan tahay haddaa ay jirtataa waa cuqubadana heesa waa weligeena dhibta waa ku jireenaa ma ku dhahayo dhibtu ma ka baxeeno waa ka baxeenaa dhibta laakiin for in ay jirto midnimo dhexdeena ah qulubteenu isku laabsalaaxan oo ismarxabeenayno waan dhahayno hargeysa guul muqdisho guul garooba guul baydhabo guul meel alla meel soomaali ka mid ah dhul soomaaliyeed ka mid ah inaa guul u rajeynaysid haddii taa ay dhacdo oo qof walba soomaaliya uu taa aamino biidnillah waa dhibta waa ka baxeenaa waa idin salaamaa xaliimo saluto salaan militariyan ku salaamay salaan oo xil sara ku salaamay farxiyo sidoo kale hindina waa arkaa dhammaantiin waa idin salaamaa ani focuskeyga waxa waaye alximaaraad iyo ragga u shaqeeya mid ma ahan reerna ma ahan waa geyga soomaaliyeed oo dhan shaqaalay ku leeyihiin alximaaraad waa idin salaama alximaaraad miska qabanay alxamdulilah miska qaweyne saana qabiilo isku heysanaynaa insha allah waa ka bixinaa laakiin waan idin socdi farxiyo filosof wax ma weydiiyaa filosofo aniga xaggayga waxa waaye inaa mike haysto uma jeedo waxbaa ka qaldan
fiir waxaan rabay hadda maaragtay qoraalada iyo hubkan iyo waxa aan soo dhignay waxaa dareemay dad inay gacmaha ka adkaatay marka qoraalada qaarkood iyo dad qaarkood magacyadooda lasoo dhigay luuqan waa nuluug karbaashe adisee u aragtaa guul waaye guula ma arkaa haddii gooni lagugula soo baxo karbaashka macnaha nala karbaashiya maya macnaha qofka oo public kula hadli waaye oo waa ka adkaataa ka wadaa la karbaash muu arko karbaash public hadduu dhaf ma fahmi horta su-aashaada inaan ku fududaada laga yaabaa jawaabta waa fahtay arrintan hubkan iyo balaayadan karteelkan isla wada shaqeynayo isku milankan socdo ma dareensanta ma daba kacday xoogaa sawirka kor ma akrisay ma fiirisay jawiga waxaa u malaynaa ani xaliima filosofia waxaa u laabtay horta screen lightkaygana aadan u gaawiyey oo banaana joogaa baterigayga waa liitaa waxaan arkaa odawaa uu soo dhigay qof kale sawirka haddaa ii sheegtay cid soo dhigto waa soo akrinaya waa ka jawaabaya laakiin dhankaas update makii because waxaan ka caraysanayaa hub intaa tiro la eg inuu shacab gacantiisa galo aan la sheeginna ciddii hubkaas wadatay dowladdana ee soo bandhigin guushii ay gaartay ay iska dhumisay oo ah inay dhahdo hubkan waa qabanay waxay ahayd isla markiiba in ay shir jaraa'id qabato ay hambalyaaso ay credit qaadato laakiin hubka ayadaa dhudhuuminaysa ayadaa dhulmaaleysa ayadaa mas-uuliyaddeeda lahayd cidda soo gadan kartana hubkaas cid shaksiyaad ma aaminsani inay tahay baadawey hubkan ilaha badbaadiyey meeshii lagu wadaybo laakiin dadka hadda qaatayna ilaaha ku badbaadiyay ayagana xaliimo su-aasha ay weydiisay dib aan ula noqonayaa jawaabteeda mar kalean ku siinaa hadda ma arkin waraaqda ii sheegaysa okay waa mahadsan tahay farxiyo ku soceli ها waxa waaye because dowladda iyada naftirkeeda isfahmi laha marna ha tiraahdo hub oo ismagalda ah baan qabanay marna raggii oo hubka lahaa ha soo istaagaan oo ha yidhaahdaan hubkeenii waa lacag baa naga qasaartay dayaaradaha lagu qaado oo taliyayaashii ciidanka nabad sugidda ha raacaan marka dowladda ha caddayso iyada kaarteelka inay tahay iyo inay dad kaarteela ay u shaqayso naftirkeedaba marka annaga caddayn baan rabnaa dowladdii baan fahmi la'anahay inay dowlad tahay inay beregaata roosa tahay labadaas mid baa annaga inaa ogaano rabnaa fiiri farxiyo kaba yar wuxuu yiri reer hooyaday wuxuu yiri reer magaalo waaye hadday xukunka ayaga joogi lahaayeen muqdishoay kasoo duulin lahaa lagu soo dejin lahaa yiri diyaar lagu ana waa ku raacsanahay reer aabahey way ka meher magaalsan yihiin reer hooyaday hadday ayaga joogi lahaayeen diyaarada inta soo saaraan meesha soo gelin lahayen cajal kale inta saaraan wax kale sheegi lahaa hadda waxa waaye xasan asoo madaxweynihii dalka ah awoodii haysto wax kasta samayn kara asxaabtii oo dhan tiimka ay yihiin see ku dhici kartaa fashilkan oo kale inoo dhigo hadduusan ilaahay ummaddan fashilayn waa su-aal la yaab loo meesha taalo